marka qof loo sheego geerida mid uu jeclaa dhulka la wareega naxdin darteed murugada maalinta ku bilaabatana hore ugama go'do oo kolba wuxuu xusuustaa waayihii ay ifka ku wada qaateen isla markaana waxaa bilaabata diyaargarowga aaska iyo axanka qofka dhinta hase yeeshee dhaqamada qaarkood ayaa kalifa in qarashka aaska aad u kaco qowmiyadaha Kenya qaarkood ayaa aaska ka dhiga xaflado qarash badan ku kaca qowmiyadda Luo degta galbeedka Kenya ayaa lagu yaqaanaa aaska iyo axanka qarashka badan ku baxaan waxay isku dayayaan inay raaligeliyaan qofka dhintay ee meedka ah waxayna ula dhaqmaan sida isagoo noloshiisa ay dib u soo noqonayso oo waxay aaminsan yihiin haddii sidaa la yeeli waayo in qoyskooda uu dhib ku dhacayo naxasho qaali ah oo si gaar ah loogu sameeyay ayaa lagu qaadaa meedka dadka xabaasha u galbiyana waxay ku labistaan dhar cusub oo loogu talagalay aaska naxashiyada qaarkood waxaa laga sameeyaa looxa ugu qaalisan waxyaabaha lagu qurxiyana waxaa laga keenaa dibadda qarashku wuxuu ku xiran yahay halka uu bulshada kaga jiray qofka dhintay iyo haynta qoyskiisa oo mararka qaarkood waxay gaartaa $10,000 inkastoo geeridu tahay dhacdooyinka ugu murugada badan haddana mararka qaarkood waxay u noqotaa dadka wax dakhli ka soo gala wax istutus ah dadka halkan imanaya waxay rabaan in xabaalaha kale sida loo aaso iyagana ay sameeyaan oo waxay u muuqataaba in lagu tartamayo marka meedka la aasayo iyo qaabka loo aasayo balse ugu dambayntii waa inaan adeegan bixiyaa oo aan sameeyaa waxa ay rabaan dadka macaamiisha ii ah ee ganacsigaygana u fiican inta waxaa dheer qarash kale oo lagu bixiyo soo ururinta dadka qofka dhintay u buroor diiqaya sida ay odayaasha dhaqanka qowmiyadani sheegayaan qofka dhintay siday u jeclaayeen ehelkiisa waxaa lagu gartaa qarashka badan ee ay ku bixiyaan aaska iyo axaankiisa waxay jecel yihiin in qofka dhintay ay ula dhaqmaan si ka fiican kuwa nool ee carruurtooda iyo hooyooyinkooda ah waan jecelnahay dadka dhintay ee meedka ah jaceyl ehelku u qabaan qofka dhintay ama ha laga sheego kay doontaba ha noqotee waxaa shaki ku jirin in dadka ku nool galbeedka Kenya ay qarash aad u badan ku bixiyaan dadkooda dhinta oo ayna caddahay in qarashkaasi maalinba maalinta ka dambayso sii kordhayo